barsaabka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur iyo duqa dowladda hoose degmada Seylac Saacad Daahir Ciige iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Seylac oo maanta u socdaalay si ay u soo indheeyaan qaarna xariga uga soo jiraan mashaariic ka socotay deegaanada degmada Seylac iyo qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Seylac oo iyagu ay sababtooda ama ay hirgelinteeda lahaayeen maamulka gobolka Salal waa Mawlid Maxamed Nuur iyo gudoomiyaha dowladda hoose degmada Seylac Saacad Daahir Ciige ugu horeyntiina waxay halkaas indheeyeen dhakhtarka degmada Seylac oo dib u habeen balaaran ku socotay si ay uga xaqabeelaan baahida caafimaad ee muddo dheer bahaysatay dadka ku dhaqan guud ahaan deegaanada hoos yimaada degmada Seylac iyagoo wali sii wato socdaalkani ay ku dardargelinayaan howlaha degmada Seylac ayaa waxa ay gaareen tuulada Geedhaad oo halkaas uu ka socdo biyo gelin loo sameeyo dadka ku nool tuuladaasi ugu dambeyntina waxay gaareen magaalada Looyacdo iyagoona halkaas xariga kaga jaray MCH ay yeelan doonto magaalada Looyacdo MCH kan balaaran ee xariga ay ka jareen maamulka gobolka iyo ka degmada ayaa waxa iyagu si farxad ku dheehantaa u soo dhaweeyay isla markaasina uga mahad celiyay mas'uuliyiinta odayaasha iyo dadweynaha ku dhaqan magaalada Looyacdo waa mashruuc ay fuliyeen maxaan ku dhahay dowladda hoose ee degmada Seylac oo maxaan ku dhahay noo dhistay maxaan ku dhahay MCH ka maxaan ku dhahay oo markii hore ay ku sameeyeen repairing ay guryo fara badan oo dhalmada ayoon jirin markii hore ay markaa waxa weeye xildhibaanada degmada Seylac iyo gudoomiyaha degmada iyo barasaabka dhammaan waxaan leenahay maxaan ku dhahay aad baad u mahadsantihiin waxaan inaga mahad celinaa maxaan ku dhahay mashruuc ay noo qabteen ee maxaan ku dhahay MCH ka Looyacdo ay noo dhiseen waayo sababtoo waxa weeye waxa la noo sameeyay maxaan ku dhahay sanadkan ama iyo sanadkii ka horeeyay waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin maxaan ku dhahay wax qabad aad fara badan waxaan ugu mahad celinaa cashuurtii la naga qaaday ee maxaan ku dhahay laga qaaday Looyacdo dib baa lagu soo celiyay waxaana dib loogu soo celiyay degmada Seylac oo ay ka tirsan yihiin maxaan ku dhahay xildhibaanada iyo maxaan ku dhahay gudoomiyaha degmada Seylac barasaabka gobolka Salal iyo gudoomiyaha degmada Seylac aad iyo dowladda hoose iyo xildhibaanada aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maadaama ay MCH noo balaadhiyeen qaybta kale ay repairing lagu sameeyeen waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa wax qabad aad iyo aad aan uga baahnayn inaan wax looga qabto MCH markaan u koobnaa MCH waa noo balaadhiyey aad iyo aad bay u mahadsan yihiin madaxda gobolka Salal iyo dowladda hoose aad baan mahadsantihiin wax qabadkiina waxa weyn maadaama aanu wakiilkii arkay joogaanahay horta baayo farboona meeshan jiray waan daboolnay in badan oo dhan tahay imika gaar ahaan MCH ka uu mahadsan yahay waxa weyn kii dhammaan qaybta dhulmada iyo waxa lagu sameeyay qaybo badan aan uga soo jeedinaynaa madaxda gobolka Salal anagoo marka hore hadaan nahay haweenka ka shaqeeya Looyacdo MCH-ka aanu cadibnayn sababtoo ah meel kaliya iyaanu u dumarka ku baaraynay kaga dalinaynay fisiidka ku marinaynay maantana waxaan haysanaa barxad weyn oo hadaan gaar galnaan seexanaa walkana cadu dibadda inagu cunaysay marka shucuurtayadu maanta anaga 90% farxad baanu qabnaa madaxdayadana ciil tirtayna waanu ducaynaynaa Looyacdo afkoodii ku hadlaya waxaan u baahnay qaybtii delivery-ga ama dhalmada oo naga baqnaa oo dadku qol qura ku wada dhalayeen laguna baarayay waxna loogu qabanayay ayaan dhibaato weyn ku qabnay tiina maanta alxamdulillah way naga furteen waxaan ku sharaf iyo maamuus iyo karaamo leh cidii wax qabatay Allah ka jiisaysiyo wax qabadka dadweynaha laga ururiyo lacagta laga ururiyo way nagu soo noqotay waxaana noogu soo noqotay wax qabadkii dadweynaha loogu qabtay MCH ka Looyacdo waxaana dadweynaha ku boorinayaa inay u helanaadaan wax qabadka iyo wax siinta shilinka yar ee loo ururinayo waxa loogu qabanayo oo iyaga laftigooduna dib loogu soo celinayo taana maaha in la muujiyo weeyaan oo dadku ay ka hortayaan ay waxna qabtaan wixii hawlahooda loogu qabanayo ee diyaarka loo yahay ayna u helayeen 24 saac barasaabka iyo maayirka iyo cidii la aad wadaagtaa waxaan dhamaantood naga codsanayaa inaguna wax qabadkiina wixii naga dhiman inaad noo qabato ugu dambeyntina waxa iyagu halkaas hadalka iska daba qaatay maamulka gobolka iyo ka degmada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Seylac iyagoona sheegay in ay dadaal ugu jiraan sidii ay u horumarin lahaayeen guud ahaan deegaanada hoos yimaada degmada Seylac waxqabadku horta waa waajib buu nagu yahay anaga inaanu mar walba u adeegno oo wax idin qabanno intan weyn ka badan inaanu qabanno ayaanu waliba rajaynayna insha Allah waxqabadku wali ma dhamaanin intaan qaban karno awoodeyda kullu waxaan kullu halkan idinka sheegaya inaanu qaban doono insha Allah waxaan xariga ka jaraynaa MCH kii Looyacdo oo in aan ku sameeynay dayactir in aan ka dhisnay ku meel gaar ahaan lagu sii galiyay meel kale maanta inay ku soo wareegaan laguna shaqo gaar hadii lagu shaqeeyo
waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa dadweynaha Looyacadde waxaan leenahay kulley waxqabadkan waa kii aad noo doorateen insha Allah halka waan ka sii wadi doonaa horta waxa Ilaahay mahadiya maanta gobol iyo degmo inaan maanta furno MCH ka oo qaybta hore la ribeerin aan ku sameynay qayb cusub oo umulisada aan ku darnay alxamdulillah inaan hooyadeen iyo hooyooyinkeen iyo ubadkeeni meel nadaafada oo fiican oo qurux badan inaan u dhisno horta Ilaahay baa mahad Ilaahay naga garsiiyay alxamdulillah dadweynaha waxaan leenahay war wax qabadka la idin qabto wadika arkay quruxda maanta ay leedahay MCH kaasi wadiga arkaya halkii hooyadu ku dhalisay iyo xaqi kale dawladda Taliban ee dawladda aan idin sameeyay gol deegaan ahaan marka waxaan leeyahay dadweynaha tuuladana ilaashada daryeelka ka dhawa nadaafadana Ilaahay baa mahadlay isku keenay saaka halkan MCH ka quruxda badan ee xariga ka jarayno gudoomiyaha gobolka boqolkiiba boqolaad baan soo dhaweynayaa xildhibaanada golaha deegaanka intan gudoomiye ma qabaneen hadaan inagu gacantaysan gola deegaan ahaan iyo gobolka iyaguba haduuna nala shaqeynay oo aanan wixii fikrada aan ku soo kordhinayna ama dadka wax u qabanna hadaan soo bandhigeyn annaga iyo gobolkuba hadaan iskala socon oo aan nabadda iyo muxuu ahay wax walba aan isla meel dhigay waxayba nooma qabsoomeen baan malaynayaa laakiin waxaas waa wadajir waxa aan ku qabanay ee hawshaas noogu meel martay inay iyaguna reer Looyacadde ay ilaashadaan oo ay dayac tirtaan oo maxaydan ay nadaafadana iyaguna ay saani u ilaashadaan waxa aan u dhameystirnaa anaguna MCH ka Looyacadde marka leeyahay waxa weeyaan waa MCH ka ugu weyn muxuu MCH-yada degmada wuxuu u dhigmaa hospital buu dhigmaa runtii u dhigmaa hospital sababtoo ah walaalkaas intuu leeyahay inta qolku ka kooban yahay iyo inta balleedkiisa gudihiisa leeyahay walaalkaasaan waxaan ugu talagalay maadaama ay Looyacadde tahay deegaan aad u ballaaran dadkuna ay cabasho badan soo muujiyeen iyagoo loo sheegeen nabada soo cawdeen loo sheegay dhakhtarku ku yar yahay isbitaalku wuxuu ku yar yahay dadka bulshada loogu adeegana ay aad u fara badan tahay anaga codsan in loo kordhiyo kii hore loo dayactay codsiga ay naga codsadeen anaguna waan aqbalay waana fulinay waxaan sameynaa anagu extension baa sameynay waxaan daray hoolka iyo qolka delivery-ga ama dhalmada ku daray iyo dayactir kale ballaaran waxaan aad ugu mahad celinayaa runtii hay'adda Bisha Cas oo nagala qayb qaadatay dhismahan hadda aan joogno maanta oo qaybta hore ku sameysay dayactir sida jiingadii ka bedeshay marmar gudaha la dhigay iyo waxyaabo badan laga qabatay aad baa ugu mahad celinaa Bisha Cas waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin caqabadii aad naga qabatay oo wax muuqda inta weeyaan aan leeyahay isbitaalka maanta waxa uu adeegayaa bulsho aad u fara badan waxa uu adeegayaa waxa maalintii qurahaatay maanta ku dhali karaysa ilaa 5-6 awana ku dhali karta halka maalmihii hore ay ka ahayd ciriiri ay mid bixinta mid ku amuuray mid ka dibadda lagu haynay banaanka joogis alxamdulillah rabbil caalamiin maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan xariga ka jaro anigu gudoomiye gobolka xildhibaanadii la socdaan dhakhtar maxaa MCH ka cusub ee Looyacadde ka dhisnay waxaan leeyahay dadweynaha waa meeshan waxaan ugu soo anagu waxaan ku qabanaynaa waxa weeye waa cashuurta adi ka qaadno ee qal xashiishka ee suuqa maqaaxida iyo salaanta jaarka hor fadhana ka qaadayno ayaan idinku ku qabanaynaa oo idinku soo celinaynaa oo lagu talagalay wax ku qabano taa waxaan ka codsanaynaa dadku iyaguna in lacagta cashuurta iska bixiyaan ardayda bixiyaan xaqal xashiiska iska bixiyaan wixii xaq loogu leeyahayna ay dhiibaan si ay naguna beritooriya aan runtii Looyacadde maalintii ugu horeysay aan mid saddex baahiyood xasaasiya yaal waa biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada waxaan aaminsanahay laba ka mid ah meel baan saarnay maadaama maanta MCH ka xariga ka jarayno waxbarashadana insha Allah bismillaah kariim iyo meel sare gaarsiino qorshaha sanadkan ugu jirta runtii waa waxa weeye meelaha ugu qaalisan in bilaadanku halku ku dhaleeyay qurux badnaa oo qof hooyaalka la keenaya taasina waa sharaf iyo karaamo waxaan golaha deegaanka degmada Saylac kun jeer ku amaanaya qorshaha sanadoodkooda oo ay ka dhabeeyeen oo ay meel mariyeen waxaan rajaynayaa sidii ay dhiinka uga dhabeeyeen inay 19 kana u sii kordhiyaan wala bilaabaan taasaa sharaf iyo karaamo intii cidii kala qayb qaadatay sida uu maayirku sheegay Bisha Casna waxaan leenahay maasantii reer Looyacadde waxaan leenahay
idinka laftarkiinu xuduud baad ku taallaan dhulka kale waa ka duwantihiin iskaa wax qabsan marka qaarkood wax ku bilaaba marka wax bilowdaan annaguna waxa dambe insha Allah bidmillaah karim way kala qayb qaadanaynaa aniga runtii dareen gooni ay samaynaysa halkaa waxaan iyadoo loo yaacdo biyaha la qaylinayo sidaan habeen iyo maalin aan biyaha meel u gaarsiin lahayn maanu seexan aniga maayarka galow waan aaminsanahay maanta in loo yaacdo soo ku cabto waxaan rajaynaynaa muddooyinka soo socda inay wax badan biyaha magaalada gudaheeda iska bedelaan bidmillaah karim waxay ka maqanisna uu keenaya annana inta kale waan baadi doonaynaa nasan mayno idinna noo shaqeeya baahidana aan la xishoonno degmada Saylac iyo guud ahaan deegaanadan hoos yimaado ayaa iyagu aad moodaa inay ka hadheen degmooyinka kale balse maamulka gobolka iyo ka degmadaba ayaa waxaa imika muuqata inay dadaal ugu jiraan sidii u horumarin lahaayeen degmada Saylac iyo guud ahaan deegaanadan hoos yimaado waa Cali Axmed Diiriye Cali Dhagadalool wararka Ariel TV magaalada Saylac